arrinta labaad ee doonaya in ka hadlo wax weey madaxweynaha Soomaaliland waa loo codeeyay waliba gobolkan ka soo jeediya degmada Koodbuur Muusabix malaha wuxuu nagu culaalatay uu nagu ururiyay uu gabilayay 930 kun oo cod baan uga codaynay Koodbuur oo aanu sharciyan waraaq ugu qaadanay lanagu ma qaraacin anaga laguma qasbin basaska anaga doonano waraaqaha soo qaadanay milgaha qofku haduu garan waayo mashaakil baa ku dhacaya waxa weeye 930 cod baan wax ku doonanaa 930 cod xaqoodii baan ku doonanaa isna wuxuu ka diiday oo uu nagu celiyay muxuu ahaa inamadii ololaha kulmiye inuu gabile u nagu koobo waxaan ognahay shalay Koodbuur inay degmadii cashuurta عاصمة ugu badneed ahayd codka tii ugu badneed baa ahayd waxa aanu arkanaa inuu Muusabix yiri inamadan soo magacawdo furun qalala ku aqcuna sooska udgoona inamadaas cunayaan waxa wax laga yeelay wallahi inay jirin dadka annaga xukuna annaga u codeeyanay bidixda u saxda hadaan dadkaygu weyn yeelayaan ma tara hadaan dhaawo ka tagayaan waxa ku sheeganaa madaxweyne haddaad codka reer Gabiley iyo Koodbuur u qaadatay koosara timiro meel dhigo ama galaan hadhuuro meel dhigo taasila waxaanu u sheegnay shalay baan u sheegi waxaana noqoni madaxweynihii ugu muddada gaabnaa Soomaaliland hatta guurtina ku kordhimayso kordhiskiina kuwii hore laacay waxa kale oo sheeganaa madaxweynaha tuusa loo doortay gobolada barigu tagawaagi dhawado si milga iyo sharaf loo soo dhaweeyo madaxweyne Soomaaliland oo loo siman yahay baa laga soo dhigay waxa la yiri wuxuu isku saandhaynaya dawladdiisii waa bil Kirishbay waddu ku raaga Kirishbaynimada uu ka baqa darawalka madaxweynuhu hadduu 10 sano oo ahaa Siilaanyo muxuu ku xigeen intii horena uu mucaarad soo ahaa dawladdii cigaal ku soo jiray wuxuu ka baqayaa inay ka kala kacdo waxaan leeyahay jaaniska siyaasadda madaxweynuhu laga faa'iideystay dadku sidii ku soo dhaweeyay wixii aad dhisay la sheegay waqtigiisii way dhamaatay waxa kale oo sheeganaa dadka imiga magacyadooda la soo celinaya kuwii shalay lagu kala dhintay ee sanadka meesha joogta lagu kala bogsaday ayaa magacyadooda suuqa la soo galiyo lagu sheegaya dadka annaga matala adiga masaajid lagama dooranay sidaas un baad mucaarad u soo hayd annaguna sidoo baan u soconanaa ilaa aanu mujeedadeeda gaarano arooskaaga kaliya lagama wada shaqeynayna dadku wada shaqeysanay laba qabyana dalku ma qaadi karo oo xisbigii kulmiyo qabya oo kii hadlaba waa laga saaray leeyahay qofna aan la soo gelinayn halkaas waa cidlo xukuumadii iyaduna laba nafood dhowra oo wasiirkiis leeyahay oo lagu bedelay waxna waa la sameynaya xaqan laga sugaya labada qabyo madaxweyne dalku ma qaadi karo ummaddu way ku sugtay reer Gabiley iyo Koodbuur waa dad goba way ku doorteen haddaad u qaadatay aamuska iyagu inuu doqonnimo dhalay hada la aafoobay allah iyo wax lagu eedbaxo aad garanaya buu yiri haddaan aamuso haween baan arko waxuma aabaysto haddaan ila xil seexdana anfaco aad u ladi maayo haddaan uubateeyana raggi iigu iman maayo arbaajidan aleelaan jid marin aga barjaanguura soo waxan iloobaba nin xuni ima ogeysiyo buu yidhinine war maanta raggii xumaa baa nagu dhex jira xoolahana waa la kala kaxaysanayaa gaalihiisu kan jira wuu kala maydhmayaa waa la kala soocanayaa haddii wixii aan laga sugaye ee arooska adiguna aroos baan anaguna mixiisano ana mixiiska ku raagi meena laga waayo dadka bidixda u saaxiib ma noorana wassalaamu calaykum wa rahmatullahi